culimada ahlu sunna wal jamaaca ayaa kulan u qabtay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaasi oo laga wacyigelinayay dhibaatooyinka xarakada al-shabaab. haddaba warkaasi waxa inoo haysta wariyaheena Kiin Cumar Makaraan oo alaabay nooga soo warranta magaalada Muqdisho. kulankan ay iskugu yimaadeen culimada diinka ahlu sunna wal jamaaca iyo macallimiinta dugsiyada wax ka dhiga ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxay uga hadlayeen sida culimada Soomaaliyeed ee waqtigan ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta loo sameeyo dhalinyarada ka soo goosanayso xarakada al-shabaab iyo sidoo kale inay ka hadlaan ka qayb qaadashada ammaanka dalka Soomaaliya doorka culimada ay ku leeyihiin. Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Soomo oo ah afayeenka culimada diinka ahlu sunna wal jamaaca ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay in loo baahan yahay in 45 cisho ee cafiska dawladda ay u fidisay inay ka faa'iideystaan dhalinyarada u dagaalanta xarakada al-shabaab. sidoo kalena waxa uu dawladda ugu baaqay inay u sameeyso qorshe u gaar ah dhalinyaradaasi oo wacyigelin loogu sameeyo. horta waa sidii guud ahaan dalkayna dadkayna aan afkaarta xun uga badbaadin lahayn ay hatag ee sareebaa leeyahay kula dii go'ana oo tagay haraagi oo ka tagay fikirka oo ka tagay isaga iyo saaxiibada kula taagan sidii shacabkeena uga badbaadin lahayn suntaas marka ma ugu horeysa ay galayso ugu dara waa ardada quraanka kariimka waa haweenka mugucunuga yar in oo soo barbaaraya in suntaas laga hortago qofka ugu habboon oo fikirka sax cunuga barbaarihaya gaarsiin karana waa macallinka quraanka kariimka marka waa munaasabo caadi heelo aad muhiim noogu ah in macallimiinta quraanka kariimka oo ilmaha gacanta ku haya quraanka nabaraaya oo waalidka labaad ahaa aan fursad u helno inay ilmaha ku barbaariyaan caqiidada saxda ah isla markaana caqiidada tan wax baabi'isa oo dalka baabi'isa dadkana baabi'isay oo kooxda shabaab ay dalka keeneen in ay fikirkaas oo u gudbin kansarka ah oo ardada waa wax muhiim ah. Sheekh Axmed Sheekh Aadan Dheer oo kamid ahaa culimada diinkii kulan ka soo qayb galay ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaatada iyo ammaan darada ka jirta gudaha dalka Soomaaliya iyo dhalinyarada inay ku biiraan xarakada al-shabaab inay keenayso in casharada laga bixiyo dugsiyada ku yaala dalka Soomaaliya inay yihiin manaahijooda kuwa laga soo guuriyay dalalka qaar kuwaas oo dhalinyarada ku abaabinayo inay ku biiraan xarakada al-shabaab. waxa waaye dadkaanu iskama abuurin waa wax la abuuray fikirka ay ku dagaalamayaan ama ay isku qarxinayaan ama isku dilayaan oo ku dilayaan ay ku banaysteen dhibaatada inta la inay geystaan wax sahlan ma tusaale ahaan ka godana la yiraahdo 40 sano jiray 40 sano ka go 40 sano waa 16 sano 16 jir aqli ahaan isku filahay maanta dadii weydii ma isku filan 16 jir maanta 16 jir oo dal dawladda aana jooga waxa loo sheegi karaa wixii la rabo hadii aanay jirin dawlad ilaalisa waxa loo sheegaa dadka asoo 16 jir ayaa college la galiyay meel wax lagu baro dadka waxa lagu shubay fikradaha maanta oo u dhintay dad badan oo u laagay asoo helay waxa muhiim ah dadka dhalinyarada ee aqoon ahaan loo xareynayo dugsiyada la geynayo madaarista ee meelaha lagu xareynayo ee manaahijta waxbarashada la siinayo la garanaynin dhibaatada ka timid waa la waxa xaqiiqo ah caalamka oo dhan inuu maanta Soomaaliya la dagaalamayo dhibaatada ka jirta. kulankan ay soo qaban qaabisay hay'adda wadahadalka bulshada ee CCD ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo dhowr ah oo ay u qabato qaybaha kala duwan ee bulshada kaasi oo looga hadlo sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa dhalinyarada u dagaalanta xarakada al-shabaab iyo kor u qaadida ammaanka dalka Soomaaliya. Kiin Cumar Makaraan, Royal TV, magaalada Muqdisho.